filimka wuxuu ku bilaabanayaa Australia gudaheeda laba dalxiisayaal ajaanib ah oo la yiraahdo Greg iyo Heather ayaa yimid dekedda si ay uga qayb qaataan safarka lagu quuso qafiska badda hoosteeda kaas oo u ogolaanaya inay la dabaashaan libaax badeedyada. Ninka iibiyaha ah oo la yiraahdo Dave ayaa uga digaya in safarkii hore libaax badeed uu cunay wiil jaamacad dhigta laakiin ma aysan rumaysanin hadalkiisa. Isla waqtigaas ayuu hagaha safarka oo lagu magacaabo Tucker u yimid wuxuuna weydiiyey dhowr su'aalood. Wuxuu ogaaday in qofna uusan ogeyn inay halkan joogaan wuuna kula kaftamay arrintaas. Haddaad halkan nala soo gaartay muuqaalka like noo saar aan ku sii wado sheekada filimka. Kooxdu waxay raaceen doontii Tucker inta safarku uu socdana wuxuu uga warramay sheekooyin ku saabsan dhowr jeer oo uu si dirqi ah uga badbaaday libaax badeedyada. Wuxuu u sheegay inuu la dabaalanayay tan iyo yaraantiisii wuxuuna xitaa jirkiisa ku leeyahay nabar weyn. Markii ay gaareen meesha saxda ah Tucker wuxuu badda ku tuuray hilib si uu u soo jiito libaax badeedyada. Heather aad bay u cabsatay waxaana argagax gelisay markay aragto baal libaax badeed oo biyaha ka soo muuqday taasoo ka dhigaysa inay go'aansato inaysan rabin inay quusto. Tucker wuxuu isku dayay inuu dejiyo isagoo ku leh isdeji balse wuxuu bilaabay inuu qaado heesta libaax badeedyada. Markii hore way naxday laakiin kadib way qososhay oo way nasatay. Labadooduba waxay galeen qafiska. Tuckerna wuxuu hoos ugu dejinayaa biyaha. Libaaxyo badan ayaa hareeraha ka buuxay. Heatherna way argagaxday markay aragto ilko badan oo libaax badeedyo ah. Greg isla markiiba wuu dejinayaa. Labadooduna waxay wada eegeen quruxda xayawaanadan waaweyn. Wax yar kadib waxay ku soo laabtaan doonta. Heatherna aad bay ugu faraxsan tahay waayo aragnimada ay la kulantay. Si lama filaan ah Tucker wuxuu soo bixiyey mindi wuxuuna ku dhuftay Greg kadibna badda ayuu ku tuuray iyadoo Heather ay qaylinayso. Maalinta xigtay gabadh Maraykan ah oo la yiraahdo Zephyr ayaa ku raaxaysanaysa hirarka xeebta. Markii dambe dukaanka raashinka ayay ka maqashay Maasi oo weydiinaya fiilooyinka baabuurka lagu kiciyo balse dukaanku kama aysan helin. Wuxuu Zephyr weydiinayaa inay iyadu haysato iyaduna waxay iska dhigtay inaysan haysanin. Kadib waxay bixisay qalab jaban oo ay qaadatay wayna baxday balse waxaa soo baxaysa inay koobka ku qarisay jalaato si ay u xaddo. Iyadoo ku sii jeeda gaarigeeda Maasi wuxuu u sheegay ama inay gaariga ka hayso ama wuxuu sheegi doonaa inay wax soo xaday. Sidaas darteed Zephyr waxay ku qasbanaatay inay soo kaxayso. Inta safarku uu socdo Maasi aad buu u hadal badnaa Zephyrna aad buu uga xanaajiyey markaasay aamusisay. Markay ugu dambeyn gaareen baabuurkiisa Zephyr waxay aragtay inuu leeyahay looxyo dalxiisayaal ah waxayna bilaabeen inay ka sheekeeyaan jacaylkooda ay u qabaan dalxiiska. Zephyr waxay ogaatay inuusan Maasi sidaas u xumayn. Maasina wuxuu qiray inuusan marnaba sheegi lahayn xatooyada ay samaysay xitaa haddii aysan soo kaxayn lahayn. Waxay bilaabeen baabuurkiisa iyagoo ka faa'iidaysanaya gaarigeeda raadiyahuna wuu shidnaa waxaana soo baxday inay jecel yihiin muusig isku mid ah. Habeenkaas waxay ku mashquuleen arrimo jacayl iyagoo gudaha gaadhiga Zephyr ku jira misana yaala banaanka guriga Maasi. Si uu u kaftamo Maasi wuxuu daaqada ka tuuraa furaha. Markay dhameeyeen way sheekaysteen waxayna wax badan ka ogaadeen nolosha ay soo mareen. Wax yar kadib Maasi wuxuu galay gurigiisa si uu quraac u soo diyaariyo laakiin markuu soo baxo gaarigii Zephyr wuu maqnaa. Dhanka kale Zephyr waxay joogtay xeebta diyaar u ah inay dabaalato balse waxay ogaanaysaa inay soo ilowday furihii looxa lagu dabaalan lahaa. Waxay ka raadisay gaadhi u dhow balse si lama filaan ah ayuu uga cabsiyey milkiilaha gaadhiga kaas oo noqday Tucker. Tucker wuxuu siinayaa fure kale wuxuuna ku ammaanay geesinimadeeda ah inay keligeeda habeenkii dabaal samaynayso. Markuu baxay kadib Zephyr waxay heshay fariin Maasi ka timid oo weydiinaya sababta ay uga tagtay. Waxay u sheegtay inay rabtay hirarka inay ku soo ciyaarto balse waxay ka labalabaysay markuu weydiiyo inuu kula soo biiro. Si lama filaan ah Tucker wuxuu madaxa Zephyr ku daboolay boorso. Zephyrna way la dagaashay laakiin Tucker ma uusan sii daynin ilaa ay ka miyir beesho. Kadib wuxuu ku muday irbad wuxuuna ku tuuray dhabarka gaadhigiisa afkana cajalad ayuu uga daboolay wuxuuna ku qariyey boorsadii ay wadatay. Kadib wuxuu u kaxeeyey dekedda halkaas oo eeyga Dave uu si joogto ah ugu qaylinayo. Tucker wuxuu Zephyr ku qaaday doontiisa wuuna xiray. Dhowr saacadood kadib Maasi wuxuu bilaabay inuu raadiyo Zephyr balse wuxuu helay oo keliya gaarigeedii oo bannaanka yaala. Wuxuu isku dayay inuu waco laakiin taleefanku wuxuu ku jiray gaariga. Dhanka kale Zephyr waxay soo toostay iyadoo silsilado lagula xiray sariir qolna ay kula jirto Heather halkaas oo baaldi loogu dhigay si ay ugu xaajo gutaan. Zephyr waxay u qaylisay si gargaar ay u dalbato laakiin qofka keliya ee maqla waa Tucker kaas oo ku raaxaysanayay dhawaaqa intuu quraacanayo. Derbiga qolka Zephyr waxay ku aragtay magac haweeney kale taasoo muujinaysa in Tucker uu arrintan muddo dheer samaynayay. Waxay raadisay wax ay ku furi karto silsilada laakiin waxba ma aysan helin. Heather waxay u sheegtay in qofna uusan soo raadin doonin. Zephyr waxay qiratay inay iyaduna isla xaaladaas ay ku jirto. Dhanka Maasi isagoo shaqo u socda ayuu arkay gaarigii Zephyr oo la jiidayo. Isla markiiba wuxuu aaday saldhigga booliiska wuxuuna u sharxay in gaarigaasi uu yahay gaariga Zephyr sidaas darteedna ay shaki tahay inay iskaga tagto. Boolisku wuxuu weydiiyey magaca buuxa ee Zephyr balse Maasi ma yaqaano sidaas darteed warbixin lama qori karo. Doonta dhexdeeda Heather way ooyeysaa waxayna leedahay mar dambe hooyadeyda ma arki doono. Waxay qiratay inay ahayd inay dhegaysato hooyadeeda oo diiday inay qaadato sanad nasasho ah. Zephyrna waxay la wadaagtay inay ku kortay guri shisheeye isla markaana ay Australia u timid si ay uga baxsato nolosheeda hore. Waxay kaloo sheegtay inay mar ku jirtay xabsiga carruurta si jawiga loogu dejiyo. Zephyrna ka qosol ayuu ka keenay. Markaas ayay Zephyr ogaatay in funaanada dabaasha ee Heather ay leedahay bir waxayna ka codsatay inay u dhiibto. Heather waxay iska siibtay funaanada wayna u tuurtay Zephyr taas oo si guul leh uga soo saarta birtii. Laakiin ka hor intaysan ku furin silsilada Tucker ayaa soo galay qolka. Wuxuu siiyey cunto iyo biyo kadibna si aad ugu dhow ayuu ula fadhiistay isagoo ka sheekaynaya ugaarsada
xirfadayaasha ku jira biyaha dhexdooda. Wuxuu dhadhaminayaa dhididka Zephyr ka hor inta uusan bixin. Zephyr waxay funaanadii dib ugu tuurtay Heather, waxayna bilowday inay mar kale kaga shaqaysiiso silsilada gacanta kaga xiran, balse way wareertay, birtiina way ka dhacday. Waxay u muuqataa in Tucker uu wax ugu daray biyaha, sababtoo ah Heather way miyir beeshay. Tucker wuu soo laabtay wuxuuna qaatay birtii ka hor inta Zephyr aysan miyir beelin. Wax yar kadib Zephyr way soo toostay iyadoo silsilada lagu xiray kursi doonta saaran, halka Tucker uu diyaarinayo kamarad iyo nalal. Heatherna sidoo kale way joogtay iyadoo lagu xiray silsilad weyn. Tucker wuxuu u sheegay inaysan cidna joogin halkaas, wuxuuna sheegay inuu hore u arkay Zephyr iyadoo dabaal samaynaysa, wuxuuna u arkay mid aad u qurux badan, taasoo ah sida uu isagu dareemo marka uu sameeyo arrimihiisa cabsida leh. Markuu jarayay timaha Heather ayuu kiciyey, Heatherna way argagaxday. Wuxuu ka sheekeeyey sida libaax badeedyada ay u yihiin xayawaan cajiib ah, wuxuuna ka cabanayaa sheekooyinka iyo khuraafaadka laga faafiyo isagoo isla markaana shidaya wiishka. Heather ayaa hawada lagu soo laalaadiyey waxaana lagu hakiyey biyaha korkooda. Tucker si tartiib ah ayuu hoos ugu dejinayaa isagoo kala barjirkeeda bannaanka uga reebay si uu duubo wejigeeda. Ilbiriqsiyo gudahooda libaaxyada badda ayaa yimid oo weliba cunay gabadhii. Zephyr si naxdin leh ayay u qaylisay iyadoo arkaysa Heather oo hortooda ku dhimanaysa. Markuu kamarada u jeediyey Zephyr, Tucker wuxuu ku tilmaamay inuu yahay bandhiga ugu fiican adduunka. Markii Zephyr dib loogu celiyey qolka, waxay derbiga ku qortay magaceeda iyo kan Heather. Markaas ayay aragtay meel dhawaan la rinjiyey, wayna xoqday. Waxay argagaxday markay ogaato in magacyo badan ay hoos ku qarsoon yihiin. Qolka cuntada Tucker cabitaan iyo ciyaar ayuu isku darsaday isagoo ku raaxaysanaya farxadda uu ka helay dilka. Cajalada Heather magaceeda ku qoran iyo timo ka mid ah ayaa lagu riday sanduuq, kadibna waxaa lagu daray armaajo buuxda oo ay ku jiraan fiidiyowyada dhammaan dhibanayaashiisa. Wuxuu kaloo qaatay cajalad cusub oo uu ku qoro magaca Zephyr. Badda hoosteeda jirkii Heather ayaa dul sabaynaya. Maalinta xigtay Mazi dabaal ayuu samaynayay, balse diiradda ma saari karo sababtoo ah weli wuxuu ka walwalsan yahay Zephyr. Wuxuu ka helay looxa dabaasha oo jaban agagaarka dhagxaanta, wuxuuna isweydiiyey inay shil gashay iyo in kale. Dhanka kale Tucker wuxuu u keenay quraac, iyaduna waxay tuurtay saxankii oo way cayday. Tucker wuxuu isku dayay inuu isdifaaco isagoo leh libaax badeedyadu waa qayb ka mid ah nidaamka deegaankan, isla markaana waxay xaq u leeyihiin inay wax cunaan, balse Zephyr weli way aflagaadaynaysaa. Waxay u sheegtay inuu isu haysto ugaarsada weyn inuu yahay, balse dhab ahaantii uu yahay dilaa naxariis daran. Tani waxay dhaawacday kibirkiisa, wuuna iska baxay. Markaas Zephyr waxay ogaatay in baaldiga kaadida ay leedahay gacan qabsi, way jebisay oo way qaadatay. Fiidkii Tucker wuxuu casho cunayaa isagoo daawanaya mid ka mid ah fiidiyowyadiisa. Kadib wuxuu isku daray dawo suuxdin ah, wuxuuna ku buuxiyey irbad. Markuu yimid qolka gabdhaha oo uu doonayo inuu Zephyr uu ku duro, Zephyr waxay qoorta kaga mudday gacantii baaldiga, isaguna gadaal ayuu u dhacay, madaxiisana sariirta kale ayuu ku dhuftay. Hadda Zephyr waxay qaadatay furayaashiisa, ugu dambayna way iska furtay. Nasiib darro Tucker wuu soo baraarugay oo wuxuu isku dayay inuu qabto. Zephyr waxay u carartay albaabka si ay u xirto, balse Tucker wuu ka daba yimid oo wuu joojiyey. Zephyr mar kale ayay carartay. Markay jaranjarada ay sii marayso, Tucker wuxuu qabtay lugteeda oo wuxuu ku muday irbadda. Zephyrna way iska laaday oo waxay ka dhigtay inuu dhaco, kadibna waxay u carartay qolka kontaroolka, halkaas oo ay isku dayday raadiyaha si ay gargaar u dalbato, balse cidina kama aysan soo jawaabin. Markay aragto doon dalxiisayaal ah oo dhow, Zephyr waxay u baxday doonta dusheeda oo way qaylisay, laakiin muusiga doontaas ayaa aad u dheeraa, qofna ma aysan maqlin. Markaas Tucker ayaa la soo baxay mindi. Zephyr waxay qaadatay kamarada oo badda ayay ku tuurtay. Tani waxay mashquulisay Tucker. Zephyrna fursad ayay u heshay inay iyaduna badda ku boodo. Waxay isku dayday inay si degdeg ah u dabaalato, balse daawadii suuxdinta ayaa shaqaysay, wayna miyir beeshay. Sidaas darteed Tucker ayaa mar kale ka soo saaray biyaha. Maalinta xigta booliisku ugu dambayn waxay bilaabeen raadinta Zephyr. Mazi isagoo daawanaya badda iyo baaritaanka ayuu fikrad helay. Wuxuu furay application la yiraahdo Wavewatch, kaas oo muujinaya muuqaalo toos ah oo xeebaha ah oo loogu talagalay dadka dabaasha. Wuxuu raadiyey muuqaaladii habeenkii hore, wuxuuna arkay gaari kale oo ka sii socda meeshii uu yaalay gaariga Zephyr. Markuu sawirka u weyneeyo, wuxuu arkay astaan ay ku qoran tahay Tucker. Markaas ayuu internetka ka baaray shirkadda. Isla waqtigaas Tucker wuxuu yimid dekedda, wuxuuna ka degay doonta si uu qalab u soo gato. Zephyr waxay ku soo toostay qolka, waxayna isku dayday inay gargaar u qayliso, balse afkeeda mar kale cajalad ayaa ku daboolan. Inta Mazi uu helayo lambar taleefan oo uu ka wacayo doonta, Tucker ma uusan joogin si uu u qabto wicitaanka, sidaas darteed Mazi wuxuu uga tegay fariin. Dukaanka raashinka Tucker wuxuu iibsaday kamarad cusub. Isagoo soo laabanaya, wuxuu ku xayirmay jaamka taraafikada, halkaas oo uu ku arkay dalxiisa qurux badan oo uu arko dhibane kale inuu noqdo. Dhanka kale Mazi wuxuu ka helay website-ka cinwaan, wuxuuna geeyey dekedda. Wuxuu garaacay albaabka doonta, balse cidina uma aysan jawaabin. Mazi wuxuu ku dhow yahay inuu baxo markii uu maqlo cod daciif ah oo ka imaanaya sagxadda hoose. Markaas ayuu jebinayaa daaqad si uu galo. Isagoo qabsaday qabsin ayuu si degdeg ah u baaray doonta, wuxuuna raacay codka ilaa uu ka helo Zephyr. Markuu ka furo cajalada, Zephyr waxay u sheegtay inuu booliiska waco isla markaana uu helo wax lagu furo silsiladaha gacmaha. Mazi wuxuu u cararay dabaqa kore isagoo wacaya 911, balse Tucker ayaa dhuftay oo dhulka ayuu dhigay. Mazi wuu iska difaacay, laakiin Tucker aad buu uga xoog badan yahay, wuxuuna ka tuuray taleefanka ka hor inta uusan la hadlin howlwadeenka. Kadib Tucker wuxuu Mazi ku tuuray dhulka, Mazina wuxuu qaatay taleefanka si uu caawin u dalbado, balse Tucker ayaa qabsinka ku dhaawacay. Kadib markuu wejiga uu ka laado, Tucker wuxuu tuuray taleefanka. Mazina wuxuu qaatay boorso oo uu ku dhuftaa Tucker si uu u rido, wuxuuna isku dayay inuu qabsinka uu ku ceejiyo. Wuxuu ku dhow yahay
inuu ku guulaysto balse wakhtigaas Dave ayaa soo muuqday oo Mazi suuxiyey isagoo u malaynaya inuu yahay tuug. Dave sidoo kale wuxuu maqlay codka Zephyr oo wuu raacay balse Tucker ayaa ku dilay qabsinka isagoo madaxa kaga dhuftay. Eygii ayaa halkaas joogay oo qaylinaya, Tuckerna wuxuu ugu baaqay si uu cararo. Markuu xiro albaabka qolka gabadha, Tucker wuxuu go'aansaday inuu doonta u kaxeeyo jasiirad la yiraahdo Shoalis. Wax yar kadib Mazi wuxuu soo tagtay isagoo sariir ku xiran kana agdhow sariirta Zephyr. Wuxuu weydiiyey sababta ay uga carartay kadib markii ay wada joogeen. Zephyrma waxay iska dhigtay inay ahayd arrimo kale, laakiin Mazi wuu fahmay wuxuuna u sheegay inay ka baqayso xiriir inay samayso isla markaana ay nafteeda neceb tahay, balse wuxuu ku adkeeyey inuu ku jecel yahay sida ay tahay. Markaas doontu way istaagtay. Tuckerna wuxuu soo galay qolka oo mar kale Mazi ayuu suuxiyey. Markuu mar kale uu soo tooso, Mazi wuxuu ku xiran yahay doonta dusheeda, agtiisana uu yaallo jirka Dave. Zephyrna waxay ku xiran tahay kursi, waxayna Tucker ka baryaysaa naxariis, balse wuu iska indha tirayaa. Tucker wuxuu dhaqaajiyey wiishka, wuxuuna si tartiib ah Mazi ugu sii dhoweeyey biyaha, halkaas oo libaaxyada badda hore ugu sugayeen. Zephyr oo quus ah waxay ka codsatay inuu iyada qaato halkii Mazi uu qaadan lahaa, balse Tucker wuu ku sii maadsaday oo wuxuu sii waday hawshiisa. Markii Mazi uu biyaha galo, Tucker wuxuu u cararay si uu u soo qaato kamaradiisa cusub. Zephyrna waxay ku qaylisay Mazi inuu istaago. Mazi wuu istaagay, libaaxyadiina way ka daaleen oo way ka dabaasheen. Tucker oo xanaaqsan ayaa Mazi dib u soo celiyey, wuxuuna marar badan uu ku dhaawacay ka hor inta uusan mar kale hoos u dejinin. Dhiiggiisu wuxuu ku daatay biyaha, taasoo keentay in libaaxyadu ay soo noqdaan. Isla waqtigaas mid ka mid ah helikobtarada raadinaya Zephyr ayaa meel fog ka soo muuqatay, sidaas darteed Tucker wuxuu joojiyey qorshihiisa, wuxuuna labadoodaba dib ugu celiyaa qolka. Zephyr waxay ka walwalsan tahay in Mazi uu dhiig bax u dhiman karo, sidaas darteed waxay qaadatay go'aan adag. Farteeda suulka ayay kala baxday, balse ka hor inta aysan gacanta ka bixinin silsiladda, Tucker ayaa soo muuqday. Wuxuu uga tegay cunto, wuxuuna u sheegay Zephyr inay iyaduna tahay libaax badeed sida isaga oo kale, kadibna wuu iska baxay. Kadib Zephyr waxay isku dayday inay gacanta iska furto, balse suulka ay kala baxday kuma filna. Iyadoo aan wax kale u harin, waxay bilaabaysaa inay qaniinto si ay uga baxsato. Habeenkaas Tucker wuxuu diyaariyey daawadii suuxdinta, wuxuuna galay qolka, balse wuxuu arkay sariirtii Zephyr oo bannaan, suulkeediina barkinta saaran. Zephyr waxay ka soo baxday meeshii ay ku dhuumatay, albaabka ayayna xirtay, kadibna waxay u carartay qolka kontaroolka, halkaas oo ay doonta ka shiday. Tucker wuxuu furay albaab degdeg ah si uu uga baxsado, wuxuuna ku orday inuu gooyo korontada, taasoo keentay in doontu ay mar kale istaagto. Markaas Zephyr waxay aragtay xaflad ka socota jasiirad u dhow, waxayna bilowday inay raadiso qoriga iftiinka. Markuu Tucker uu soo dhowaado, Zephyr waxay ku riday qorigii, wayna carartay. Waxay isku soo xirtay jikada, waxayna kor u fuushay miiska, halkaas oo ay ka jebisay muraayadda saqafka si ay uga baxsato. Markay baxaysay, suunka ammaanka ayaa ku xanimay. Tuckerna wuxuu soo galay jikada oo hoos ayuu u soo jiiday. Labadooduba way wada dhaceen. Zephyr waxay qaadatay digsiga wax lagu shiilo, Tuckerna mindi ayuu qaatay. Zephyr way istifaacday, waxayna mindida kaga dhaawacday gacantiisa, kadibna digsiga ayay ku dhufatay si ay u rido, markaasay mar kale carartay. Tucker wuxuu u orday doonta dusheeda, wuxuuna shitay nal si uu u arko Zephyr oo u dabaalanaysa dhinaca jasiiradda. Wuxuu u cararay inuu qaato warankiisa, balse aragtideedii ayaa kasii lumaysa. Markaas ayuu raacay doon yar oo dheeraysa. Markay Zephyr gaartay xeebta, Tucker wuxuu ku booday oo wuu miyir beeliyey, kadibna dib ayuu ugu soo qaaday doonta. Markuu uu soo tooso, wuxuu ku xiran yahay kursi. Zephyrna waxay ka laalaadaa badda korkeeda. Tucker biyo ayuu ku daadiyey si uu u soo kiciyo, kadibna wuxuu ka sheekeeyey kalluunka iska caabiya marka la qabto. Libaax badeed ayaa ka soo muuqda biyaha sababo la xiriira dhiigga Zephyr dartiisa. Tucker hoos ayuu u dejinayaa isagoo diyaarinaya kamarada. Markuu libaax badeedku u soo dhowaado, Zephyr way laadaysaa, libaax badeedkiina dib ayuu u degay. Tucker oo xanaaqsan ayaa qabsinka ku kiciyey si uu uga xanaajiyo, balse libaax badeedku qabsinka ayuu qabsaday oo la baxay. Zephyr waxay ku guulaysatay inay qabsinka qaadato ka hor inta uusan libaax badeedku baabi'in. Kadib Zephyr waxay qabsinka u isticmaashay inay ku fuusho silsilada wiishka, balse libaax badeedku mar kale ayuu hoos uga soo muuqday. Tucker ayaa argagax geliyey Zephyr, taasoo keentay inay biyaha ku dhacdo. Halkaas ayay ku aragtay libaax badeedka oo u soo socda. Wuxuu eegay dhowr ilbiriqsi, balse maadaama isaguna uu dhaawac uu ka helay Tucker, wuu ka soo dabaashay oo wuu baxay. Hadda Zephyr waxay awooday inay doonta fuusho iyadoo si qarsoodi ah u socoto. Markay hesho warankii, waxay ku toogatay Tucker, taasoo badda ku tuurtay. Libaax badeed weyn ayaa soo laabtay oo ku soo booday Tucker, isagoo cunaya sidii aargudasho camal. Wax walba kamaradu way duubaysay. Xariga waranka ayay Zephyr hoos u soo jiiday sababtoo ah iyada haysatay, balse way sii daysay, waxayna dib ugu soo dabaalatay doonta. Waxay si degdeg ah u qaadatay oo cirka ay ku rida iyadoo gargaar dalbanaysa. Wax yar kadib, doon ka timid jasiiradda ayaa yeerisay hoonka si ay u muujiso inay soo socoto. Markaas Zephyr waxay hubisay Mazi oo weli miyir daboolan, waxayna ka baryaysaa inuu soo tooso, iyadoo leh adiga keliya isoo haray hayga tagin. Nasiib wanaag Mazi wuu soo toosay, wuxuuna u sheegay isagoo ku leh waan ogaa inaad si saayid ah ii jeceshahay. Filinkuna halkaas ayuu ku dhammaaday. Muuqaalka haddaad ka heshay like saar, haddii ay tahay markii ugu horeysay aad soo booqato janaalka subscribe dheh, gambaleelka furo si aad u hesho muuqaaladayda xiga. Mahadsanid.